waddankan waxa uu ka mid ahaa wadamada badda leh dunida balse maanta waa mid markaa ka jooga gacan marnaan sababtan iyadoo la eedsanayo madaxalkaniti soo martay maamul xumadooda sababna markaa u noqday in gibi ahaanba badda waddankaniti xoog lagu qaato dadka waddankan kaliya maanta waa kuwa markaas awoodi karo in maalin barordiiq markaa u sameeyaan ayagoo si gaar u xasuusanayo baddoodii xoogga looga qaatay muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa xogo ku saabsan waddanka Bolivia balse intaan u gudagelin muuqaalka marka waxa ku xusuusinaa in muuqaalkan alla garasiina share gareso haddii aad ka mid yahay baaweynta nagu xirna inaad nagu soo biirto waad ku maasantaa waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aanu gudagalno muuqaalkeena maanta waddankan lagu magacaabo Bolivia waa mid xiran oo gibi ahaanba wax badan marka aan lahayn waxaana waddankan intii ku yaala bartamaha koonfureed ee qaaradda Amerika dhanka xuduudaha waddankan intii Bolivia waxa xuduuduleed marka uu leeyahay 5 waddan waxaana tirada guud ee dadka Boliviaanka ee waddankan Bolivia kuna lagu qiyaasaa in tiradoodu marka ay gaarayso ilaa 11 milyan caasimada waddankan intii Bolivia uu leeyahay waxa marka ay gaarayaan ilaa 2 caasimadood waxaana caasimada waddankan intii Bolivia uu leeyahay lagu kala magacaabaa La Paz iyo Sucre dhibta ugu weyn ee waddankan intii Bolivia heysata waa mid marka dhanka badda ah waxaana waddankan intii ku adag Bolivia kheyraadka waddankiisa marka ka soo saarto in si fudud marka dunida inteeda kale ugu iibgeyn karo xilliga xornimadooda waddankan intii Bolivia waa kuwa marka si hantiye bad iyo dhul ay marka si madax bannaan yihiin waxaana waddankan intii Bolivia uu ka mid ahaa wadamada badda leh dunida balse xilligaas maadaama Chile ay ka awood badnaayeen waxa dhacday in Bolivia marka dhibaato ay kaga yimaado dhanka Chile Bolivia waa mid marka xornimadeeda ka heshay waddanka Spain taariikhda markii marisay 1825 waxaana Boliviaanka marka u suurta gashay in kheyraadka dhulkooda marka ku jira ay daha qaataan si buuxdan iyagan marka maamulkooda gacanta ay ugu qabsadaan ogana faa'iideystaan kheyraadka dhulka waddankan intii Bolivia laga soo saaray gaar ahaan in halkan ay laga qodayo macaadina marka ka mid ahayn nitrate iyo copper-ka oo mid marka si damac ku dhalisay Chile in dhulka waddanka intii Bolivia kheyraadka marka ay ka soo saarayso xoog marka inay ku qabsadaan waxaan ugu dambeyn marka u suurta gashay Chile in marka si dhulka macaadinada Bolivia ay ku qodayeen in xoog marka ay kula wareegaan halkaasna marka ay ka aasaasaan warshado macaadinada ay ku farsameeyaan maadaama Bolivia xilligaas awood Chile marka ay kaga hortagi karto aysan lahayn waxa dhacday in wada hadallo marka ay galaan Chile iyo Bolivia waxaana marka wada hadalladaas heshiisyada la galay mar walba marka ku awood sareysay kheyraadka inta ugu badan ka faa'iideysanaysa waddankaas Chile 1866 gaar ahaan bishii 8aad waxa caasimada Chile Santiago gaaray madax ka socotay waddankaas Bolivia waxaana madaxda Bolivia halkaas gaaray heshiis ay la saxiixdeen madaxda waddankaas Chile waxaana heshiiska labada marka madax ee ka kala socotay Bolivia iyo Chile marka ay qeexay heshiiskooda in dhulka waddankaas Bolivia xoog looga haysto Chile macdanta marka ay ka qodato kheyraadka halkaas laga soo saaray faa'iidada ka soo baxda in labada dalba marka si wada jir ay kaga faa'iideystaan heshiis kale oo ay wada galeen dawladaha Chile iyo Bolivia taariikhdu markii barisay 1874 waxa heshiiskaas marka uu qeexnaa qaab ah in marka Chile wax canshuur marka warshadeed macdanada aan lagu kordhin karin Bolivia go'aankaas marka ay qaadatay sidoo kale laakiin canshuurta kaliya marka la isla go'aamiyay Bolivia ay ka qaadato warshadaha macaadinada marka ay Chile ay ku yaala dhulka Bolivia xoog looga haysto heshiiskan waxa marka dhacday sanooyin kadib in Bolivia marka uu cuntimi waaye maadaama ay u aragtay hal dhinac heshiis ka raran waxaana marka dhacday 1878 in Bolivia gibi ahaanba marka heshiiskii Chile la gashay ka baxdo waxaana soo rogtay sharciyo cusub waxaana Bolivia sharciyadaas marka ay soo saartay sheegaysay in canshuurta marka iyada ay go'aansatay ay ka qaadayso warshadaha Chile ee macaadinada marka ay ku yaala dhulka Bolivia xoog looga haystay Bolivia waxa marka sidoo kale go'aan ay ku qaadatay hantida Chile dhankeeda marka ka jira in gibi ahaanba marka oo la soo wareegto si xornimada iyada dhankeeda marka kheyraadkeeda u maamulato laakiin Chile heshiiskii ka baxa marka kaga yimid dhanka Bolivia waxa marka ay u daruurta gaashaanka iyadoo jawaab celin marka kaga dhigtay Chile in ciidankeeda marka dhulka xoog ay ku haysteen gibi ahaanba marka la wareegaan waxaana sidoo kale marka dhacday 1879 inta kada marka lagu magacaabo Antofagasta in ciidanka marka Chile si toos ah oo la wareegaan maadaama la xalaashaday dhulka Bolivia xoog looga haystay Chile awood marka ay ku qaadatay waxa Bolivia marka ay sameysay ka dhiidhin iyadoo marka go'aansatay in dhulkeeda dagaal marka ay ku soo ceshato waxaana Bolivia oo garab ka helayay xilligaas dawladda Peru go'aan marka ay ku qaadatay dagaal inay ku kiciyaan ciidamada Chile dhulkeedana marka xoog ku haysta dagaalkaas u dhaxeeyay Peru iyo Bolivia isku dhinaca iyo Chile waxa marka lagu magacaabay Nitrate War waxaana dagaalka marka u socday taariikh u dhaxaysay 1879 ilaa laga soo gaaro 1884 Bolivia dagaalka marka ku qaaday Chile iyadoo kaashanaysa Peru si dhulkeeda xoog marka ay ugu soo ceshato gibi ahaanba wax guul dagaaladaas kama xaqiijin waxaana Bolivia dagaalkaas marka Chile ay ku qaaday maadaama laga gacan sareeyay gibi ahaanba marka ku weysay dhul kheyraad marka uu ka buuxay iyo bad gibi ahaanba Bolivia maadaama awood marka u yeelan weysay cudud ciidan in dhulkeeda marka ay kaga difaacatay Chile
waa mid markaasiti sida aanan kaga harin si walba marka ay ku raadin kartana marka isku day inay u sameysay Bolivia in dhulkeedii dib marka ay kaga heshay Chile waxa dhacday 2013 in Bolivia markaasiti kiis dacwadeed ka dhana Chile marka ay geeso maxkamadda Hague si marka cadaalad ay ugu raadiso in dib ay u hesho dhulkeedii Chile xoog marka ay kaga qaadatay Bolivia waxa dhacday in kiisaskaas gibi ahaanba markaasiti ay qaadiceen dhanka Chile waxaana Chile ilaa haatan markaasiti wax wada hadal marka aysan kala yeelanin baddi iyo dhulkii marka xoog ay kaga qaateen Bolivia waxa marka dhibkan intuu horseeday in gibi ahaanba markaasiti ay weyso dhul qeyraad markaasiti uu ka buuxay iyo badeeda intaba Chile marka xoog ay kaga qabsato heshiisyo in la'aan Bolivianku marka hore u galeen dawladooda waxaana dadka maanta wadankan ku nool Bolivia markaasiti wali ay xasuustaan badoodii marka dhulkoodii xoog looga qaatay dadka wadankan kaliya maanta waa kuwa markaasiti awoodi karo in maalin marka ay ku maamusaan baroordiiqna marka u sameeyaan iyagoo si gaar u xasuusanayo dhulkoodii iyo badoodii Chile marka xoog ay kaga qaadatay